فرانسيسكا قبل مرة أي حرانيس أي دولتي يا برلمانكي يا وزارتي يا كل واحد دجال كل شيران مرة أي قبل حرانيس حكنا عن سويدن انتو لهوري من نسخة قرآن كم ده أيو كوجبي قارنا كوتشاح قارنا كويستاجي الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما المهن دنبه وحاد السكر لي حد قدبك هي ماجتانك لغوها يو دينة الإسلام كي يدد كذا هي مقدسات كذا قارهان دولتها الرجال بيتك هي مجانين تودي الشعوب تودي قار كمل وحادوا فافي نعيبك إسلامك مستوى وحقار سيسية هي حزبيادooda siyaasaddu qaar kamida ay ku tartamaan inay islaamka la dagaalamaan. mustawa wuxuu gaadhay in dawladaha qaarkood ay muqaddasaadka islaamka u bareeraan waxyeeladooda. faransiiska oo la yiraahdo waa dawladii dimuqraadiyada iyo calmaaniyada aabaha u ahayd ee dhashay ama hooyada u ahayd waxa ka socda waad aragtaan. gabadh mara ay xiranayso ayaa dawladii iyo baarlamaankii iyo wasaaradeedii iyo kulli waxay dagaal kula jiraan maro ay gabadh xiranayso. waa maro maalmahan u dambeeyay waxa ka dhacay Sweden ciidii aynu hadda ciidaynay maalintii arbacada ahayd. mid ciraaqi ah oo qaxooti ah ayaa maalintii muslimiintu ciidaya masaajidka ugu weyn magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden intuu la hor yimid nusxa quraanka kamid ah masjidku la soo aaday ayuu ku gubay qaarna ku jeexjeexay qaarna ku istaagay. maxkamad Swedish ayaa siisay idanka inuu sameyn karo. booliiskii Swedish-ka ayaa waardiyeynaya. ka horna way dhacday Denmark bay ka dhacday. Sweden bay soo noqnoqotay. qoysaskii muslimiinta ahaa ee cararay u galay ayaa ilmahoodii inta la dafo xoog looga qaato ayaa waxa loo dhiibayaa qoysaska khaniisiinta ah iyo gaalada iyadoo loo xujeysanayo caruurtan waalidka laga ilaalinayo mustaqbalkooda la ilaalinayo. ka hor wixii nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam lagu sameeyay ya magac dilka iyo xadgudubka waa la soconay. waxa soo dhayaa ilaalinaya dawladaha reer galbeedka. tasarrufaat shakhsi ma aha laakiin waa mawaaqif dawladuhu garab taagan yihiin. xadgudubka marka muslimiinta iyo diinta lagu hayaay waa soo kordhaya maalinta ka dambaysa. arrintaasi way mudan tahay inaan isdul taagno dhowr arrimood dhowr dhinacna iska taagno. dhinaca koobaad su'aal waxaan isweydiinaynaa maxaa sabab u ah islaamnimo nacaybka iyo xadgudubkan iyo tasarrufaadkan maxaa sabab u ah? jawaabtuna waxa weeye reer galbeedku way caydhoobeen. hadday xoolo haystaan diin iyo akhlaaq bay ka caydhoobeen. markii hore waxay haysteen Krishtan bay ahaayeen diin muharraf ah oo sidii Ilaahay ku soo dejiyay aan ahayn
oo khaldantay bay haysteen laakiin tiina waa ka guureen oo waxay u guureen wax la yiraahdo ilaahna ma jiro aakharana ma jirto ilhaad iyo diin la'aan ayay u guureen iyo akhlaaq la'aan oo yaani bini aadamka wixii lagu yaqaanay akhlaaqaha inay tuuraan oo sida xoolaha iyo bahaa'imta iyo duurjoogta u dhaqmaan akhlaaqna waa ka ciidoobeen diin iyo caqiidana waa ka ciidoobeen halka markay marayaan Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu geliyay diintan islaamka diintana ku faaftay gudahooday gashay guryahoodii bay gashay dumarkoodii bay gashay siyaasiyiintoodii bay gashay falaasifadoodii bay gashay aqoon-yahankoodii bay gashay jaamacadahoodii bay gashay waa gubteen marka dheriga maxaa karka ka keenay kulka waay wax kale oo qabtaan bay garan waayeen diintanna diin la hor istaagi kara ma aha faafitaankeeda dawladii inay wadoy taageerto uma baahna hay'ad caalamiya inay taageerto uma baahna mana haysato oo malaha laakiin laf ahaanteeda diintani waxay u tahay diin quluubta furanaysa idan uma baahna iyada toos u galaysa wax kasto oo sameeyeen dacaayaday faafiyeen dhaqaalay kula dagaalameen ciidan ay kula dagaalameen qarnigii tagay iyo qarniganba waxba ayna reebanin haddana maca dalika waxay qirayaan diinta adduunka ugu faafid badan waa diinta islaamka waa yaa faafinaya yaa wata Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wata wehel uma baahna Allah wata wehelna uma baahna arrintaasay ka kululaadeen islaamfobia bilaabatay islaam nacayb baa bilowday laakiin su'aashu waxay tahay misxaf la gubay iyo nabi la caayay iyo caruur la dafay iyo xadgudub diinta iyo islaamka iyo dadkeeda lagu sameeyay diinta islaamnimada ma hor istaagi kartaa jawaabtu waa maya وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور صلى الله عليه وسلم دينتني waxay gaari doontaa meesha habeenka iyo maalintu gaaraan habeenka mugdigiis iyo maalinta iftiinkeedu adduunko dhan bay gaadhaa meel ay gaadhaan diintani way gaari buu nabigu sallallahu alayhi wasallam guri dhoobo ka dhisan iyo mid ka dhisan dhogor ka dhisan ma jiro balad iyo baadiye waay illa ilaahay islaamnimada iyo diinta wuu gelinayaa dadkana laba mid bay noqorayaan mid diintan ku cizoobo qaato sharaf ku yeesha iyo mid duloobo oo diintan sababteeda ku duloobo gaalnimo iyo xumaan qaata laakiin ilaahay meel walba waa gelinaya tabaaraka wa tacaala way socotaa taasaana ka cadhaysiisay reer galbeedka waa qodobka labaad waxa weeye u baahan inaynu muujino waxa ay sameynayaan Allah tabaaraka wa ta'ala marar badan wuxuu u rogayaa inay dacwo iyo faa'iido noqoto marar badan baa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka Allah wuxuu ka soo saaraa faa'iidooyin nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii lagu been abuurtay qoyskiisa oo xaaladdu bil ku dhawaad ay taagnayd oo wareer badan uu dhacay الله تبارك وتعالى منافقين تو أي كبين أبورتين رسولك حاسكيس حديثنا مركو إلهي كهذا يوحيري لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هأم لينينا إني شر إذين تهي خير بي إذين تهي وحكرنا لنا إيا فإذوين كالله كرنا لنا يا خير كرنا إيا تانينا وحوي رقبات وحي هلي كرين إعلام وحي هلي كرين warbaahin waxay heli kareen mid la fiirsado mid la akhriyo mid la daawado mid la qoro wax kasto ay heli kareen waxay u sakhireen inay islaamka magac dilaan markii u dambeysayna waxay gaadheen inay qaabka u tasarrufaan hadda adarkaysan laakiin maxay isu rogtay waxay isu rogtay shucuubtoodii
inay dacaayadan dhexdeeda ka fahmaan oo ka raadiyaan waxaan la dacaayadaynayo bal xaqiiqadiisa aan dul istaagno markaasaa wuxuu noqday qur'aanka kariimka oo luqada ingiriiska iyo faransiiska ku turjuman kitaabka loogu raadin badan yahay ee loogu akhris badan yahay buu noqday wixii islaamnimada sharxaya wixii loogu raadin badan yahay loogu akhris badan yahay bay noqotay dadkii horay waxayna si aynu u islaami jirin bay soo islaameen iclaamkoodii dacaayadda ah buu ilaahay wuxuu u rogay inay dacwo noqoto oo ayba diintii faafitaankeedii sabab u noqoto allah baa tabaaraka wa tacaala inoo sheegayo si kasta hadday u kahdaan oo u karahaystaan allah nuurkiisa iyo iftiinkiisa ma hor istaagi karaan yuriiduuna liyudfi'uu nuura allah waxay doonayaan inay ilaahay iftiinkiisa damiyaan waa diinta islaamka faafitaankeeda biafwaahihim afafkooday rabaan inay ku damiyaan iyo dacaayadooda laakiin wallahu mutimmu nuurihi ilaahay nuurkiisa waa dhammaystirayaa walow kariha alkaafiruuna gaaladu haba kahdeene iyagoo nacab la dagaalamaya dacaayadaynaya allah haddana waa dhammaystirayaa aayaddii kale waxay ahayd ويأبى الله إلا أن يتم نوره ألا واديدي إلا إفتينكي سئنو لما يسترمو يعني مركا وحيو ديبا إلهي وحو الرقيا إنو مصالحي كدلته وحبضا أو إسلام كدن أقو جرته ضد بدنا أي دين تسوق قالان سي يعني وحويا أن كلا قولها إن الله سو إسلام وحكى علي سيني يتاسوه وحاودن بي حج كان هذا waad aragteen warbaahinta iyo baraha bulshada waxaa ka muuqday nin baadari ahaa oo kumanyaal ruux taaraacsanaayeen oo kaniisad mas-uulka ahaa oo islaamay wuu soo islaamay waxaa cajiib ah ilaahay markuu ruuxa islaamnimo la rabo wax yar buu sabab uga dhigaa ninkaasi markuu ka hadlayay sababtuu ku islaamay wuxuu leeyahay anoo hurdaan riyooday waa la ii yimid oo waxaa la igu yidhi dadka ku raacsan qamiis u xidh waan soo kacay hurdadii baan ka boodayo waa isaga noqday buuri mar labaad baa la ii yimid oo la yidhi dadka ku raacsan qamiis u xidh hurdadii baan ka boodo haddana waa ku laabtay buuri markii saddexaad baa si canaani ku jirto hadal kulul ah waxaa la igu yidhi dadka ku raacsan qamiis u xidh halkaasaa waxaan bilaabay buu yidhi inaan isweydiiyo yaa qamiis xidha muslimiin bal diintaa ka wardoon asagii islaam intii kumayaalkii raacsanaydna way soo islaameen xajkuu ka dhex muuqday isaga oo xajinahaya oo labayka allaahuma labayka ku haya oo la warsanayo oo leh waxaad moodaa maanta inaan dhashay cimrigaygii maanta ka wii abuu leeyahay dareenkayga iyo tawxiidka iyo macaanka aan dareemayo arrinta xanuujinaysa reer galbeedka iyo gaaladu taa iyo wixii la mida waay laakiin waxay ka qaban karaan ma jiro qodobka saddexaad ee isdultaagga mudani wuxuu yahay arrimaha noocan oo kale ah waxay muujinayaan reer galbeedka beentoodii inay dhammaatay qiyamkay sheegan jireenna inay burbureen gabbaadkii ay ku gaban jireen oo caalamka ku siri jireenna inuu dhammaaday wada noolaansho ha lays ixtiraamo cid walba cidda kale ha ixtiraamto dadka kale kuu yimid aqbal waa inaad aqbasho diimuhu ha wada noolaadeen ha lays ixtiraamo tacaayush silmiya tasaamux wixii ay akhrin jireen been bay noqotay ilaan markii horeba waxaasi dhab ma ahayne markii layna sirayo iyo masaakiinta loo akhrin jiray oo moodi jiray inay dhab tahay dimuqraadiyadu markay ayaga masaalixdooda u adeegaysay dimuqraadiyo tahay tasaamuxu markuu iyaga maslaxadooda u adeegayuu tasaamux jiraa tacaayushku markuu maslaxadooda u adeegayuu tacaayush jiraa laakiin markuu maslaxadooda ka hor yimaado darbigay ku dhufanayaan wax jiraba ma aha ileene qiyamkoodii iyo waxay sheegan jireen baa burburay fadeexaa bannaanka timid waxaa ceeboobay
ninkii aqoon-yahanka muslimka siyaasiga ahaa ee ku qanacsanaa reer galbeedka hala raaca thaqaafadooda iyo ilbaxnimadooda iyo horumarkooda inugu akhrin jiray inaan hortaagnaa kiibaa ceebaysan oo maanta wuxuu sheega garan la'a yaad ka gadaysaa sayidkii kuu soo dhiibay iyo odaygii kuu soo dhiibay ayaa qaabkaa u dhaqmayoo fadeexeeyo wixii ku tuntaye waryaad ka gadiyo maanta kaa siisanaya waxaanaad akhrinaysaad muslimiinta u sheegaysa aamus ceebtaada aamus qoladaasi la soo dirsaday inay fadeexoobaanna maslaxa ku jirto in badanoo muslimiinta ka mida ku fitnaysnaa xadaarada iyo ilbaxnimada iyo reer galbeedku waxay sheeganayaan qodobka xigaayi wuxuu yahay dhacdooyinka noocaasi waxay ina barayaan cadowgeenna allana qur-aanka kariimka meelo badan wuxuu inoogu sheegay inaan cadowgeenna iyo saaxiibkeen kala baranno wallahu aclamu biacdaa'ikum cadowgiinna ilaahay baa yaqaana wamaa tukfii suduuruhum akbar inta ka muuqatay afkooda iyo adinkooda waxaa ka weyn waxay qalbiga ku qarsanayaan waxa u qarsoon baa ka daran cadowgaaga inaad ogaatood saaxiibkaa ka ogaato macno weyn waay leanna mabda' weyn baa ku salaysanoo inaadan kadsoomin oo lagu khaldin allahna tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay mabda'aasi markuu lumo inuu fasaad weyn dhulka ka dhacayo allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala gaaladu iyagaa saaxiib isu ah iyagaa isla jira iyagaa awliye isu ah iyagaa isjecel iyagaa garab iyo naasir isu ah haddaad macnaha lumisaan oo aad gaalada garab ka dhigataan oo saaxiib ka dhigataan oo isku hadlaysaan oo الله وحده تبارك وتعالى دولك فساد وين با كدحيا وانا كان ina haysto waay xaqi iyo baadilkii baa isku darmaday oo cadawgii iyo saaxiibkii baa isku qasmay oo muslimiintii waxay isu dhiibeen cadawgoodii bay isu dhiibeen oo ay saaxiib ka dhigteen markaas ay qadiyadoodii lumiyeen waa ina marka layna baro oo si camaliya laynoo baro cadawgeenu yuu yahay الله تبارك وتعالى با كونكن iskale isagaana maamulaya isagaana wuxuu doona ka sameeyo rabbi tabaaraka wa tacaala qodobka u dambeeya wuxuu yahay mudan inaynu isdul taagno maxaa inagala gudboon arrimaha noocan oo kale ah waxaa inagala gudboon arrimahani waa dhici jireen markii nebi maxamed la soo saaray sallallahu alayhi wasallam ee dacwadani ay bilaabatay waxay la bilaabatay dagaal waxay la bilaabatay dacaayad waxay la bilaabatay xadgudub waxay la bilaabatay nabiga la isku dayo in la dilo salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaan loo geysanin male waxay soo martay markii la fiiriyo waxyaalahan laciif saqiir bay noqonayaan seebay diintu arrimaha noocaas oo kale ay mawaaqifta ula dhaqantay see nabigu ula dhaqmay sallallahu alayhi wasallam tilaabo kastoon qaadayno waa inaynu ilaalino diinteenna iyo waxay dejisay iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqankii qiimaha badnaa iyo leeno dejiyay waa inaan ilaalino qawaacideeda waaweyn waxaa ka mid ah maslaxaday diintu keentaa wayna dhammaystirtaa mafsadadii iyo wixii xumaantana way fogaysaa hadday maslaxiyo mafsado isqabtaanna waxay hormarisaa mafsadadaa la reebaa maslaxada ha lunto markaas waa inaynaan ku kicin tasarufaad dhibaato keenaya ka weyn maslaxada laga raadinayo allah tabaaraka wa tacaala nabigiisa muxameda wuxuu ku yidhi ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قال هذا إلهيدودا إن أد وحكشيكتو هدي كينيسو إني الله وين عايانا وحكشيغان إلهيدودا وحكشيغن هنا عاين لأن مصلحة رادين يسو مفسدك وين باكر لنا يسواه تصرف كستون تلاوة كستون قاضي نوا إنا شريعتنا وقدم بين ميدا لبادويه وإن نلفظ ضيسنين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مركي عرمها النوع سوكلا لجسمه ربي وحي كيري وأجنها إني عرمها سوكل بيا جس كي حد جذب كلوجو هيو محيا حالكم دين هذا كلك إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وأجنهي وحيدها يعني إن قلبك عريري قالوا يكون لما يسوى أجنه معان سميا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين دين هذا كله قالوا كن الصبر بنبي صلى الله عليه وسلم وحني واسكر من دوناني
يا بالحوفتدن إيو دعايدن إيو وحني واسكر يمان دونا حقيقة هاري دونتا ee waxaad samaysaa diintaada ku dhaqano marka diinteena aynu ka rusheegno dhab ugu dhagno faafinteeda aan sii xoojino macaanideeda quruxda badan iyo samaaxadeeda aan muujino akhlaaqdeeda qiimaha badan aan muujino waxan kalaati waa iska dhamaan doonaan فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض حقيقة هاري دونتا دينتنا وصوصعتا الدون كان الدين كلا أو حق أو شرط ملها قرال كاسا شره سيدا سينا أرموه أسعدان أرمها النوع سوكلا أنا وإني جوابتين نقطه محاي دينتين كو علاجي سي محاي قبتا سان أتلاب سنة أين أتلاب سنين قاب يقود لينوغو تلقالي إني ننكو دحنو لينا فضوضي سنين أرنتانا إن لقد دالوي بإذن الله تبارك وتعالى جيهوين كقاركود أو مسلمين تو علماء وحي سوتشي دينيان إن دولتها النوع سوكلا تصرفها كتصرفية بدي عضوه دي منتجات كود إيبسي جيدا إلا تشوتشيو وانا النوع دقالك كم إذا هدات سمين كرتو ويقيم بدنتهاي إناد أغيروتو دين هذا أو الدولة هبلاء أو كتاب كاجي النبي كاجي دين هذا كوحد قدبتي إناد دقال أهان أولاد دقال لنتو وإنت تكري كرتوي دين الإسلام كنا الله مرحلة ويكلا صارتي سيدا الأولاد رقم يدعدوين كنوعا وكلا مرحلة المسلمين تحوق بديهن أود ليهن قابا الأولاد رقمه مرحلة المسلمين تتبريريهن قاب كدوان بالأولاد رقمه أرموا مركي سنسيكين خلدمين صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك